قمات وحن وارجنا قميسي وحن وارجنا من بتكور إنيته waxa la hadlayo waa gabar hooya dhashay habar yar bay qabtaa qaraab bay qabtaa dumar baan nahay cid wax laga tashatay insaan baa la yeelaa naftinkeeda in kasta oo dhacdo waa la xaliyaa waa run laakiin xalliga naftinkiisa cid naga taageerisa ma laha habarta gabarteeda soo hada baraarane waxba kama oga rag baa geed hoostiis fadhiisto soo dhameystay waxa la dulmayana waa culug aqoon oo 20 sano gaari jiifka nin maxkamad keenay ma qabiilkiisa lacag buu bixiyay qabiilka kalena lacag buu qaatay dhis ayagana shiisa la sii waasii dayninki أنا وحن وصلنا إن إنك محكمة ذكين ما ماذا إنا يقنع wax kasta lagu qancin kara maamada ujuunka koysi lacag baa loogu faanay lacag baqshad lagu wada rag loo geeyay ragna waa qaybsadeen gabar ma dhalinaayga gabarta abeed dul ku galay salaamu calaykum xaliima cabdiqaadir ali daaniga waxaan ka xumahay maamada xaq gudubka lagu la dhaqmay waa sarkaysiina oo malaya wax ku dhacay maamada gabarta dhashay waxaana ka xunaanay keeskii oo odayaalka iyada sheekadooda ay diiday maanta odayaalkii kaligood inay arintooda goostaan oo keeskii waa dhameynay ay dhahaan oo gabarta maamada gabarta dhashay ay war ka haynin keeskii jini laga dhameystay oo ninkii waa la qaado gaarisa loo qaadanay la dhax arintaas waan ka xunaanay maamayaal hadaanaanay gabdhaha hadaanaanay maamooyin ilma dhaleen hadaanaanay waan ka xunay arinta iyada maxay yeelay xaq bilcaanta ayaa meeshan lagu dhiminaa maalin kasta waxa la leeyahay xaalka waxa lagu dhameeyay kiwaze odayaalka keeska lagu markay dhameeyaan wixii lacag ay bixiyaan ay kun baa iska cun maxaa yeelay qofkan waa qof waalid oo ilmo agooma haysto gabarteeda xaqeeda in loo soo bixiyo rabtay maanta maxaa laga dhigay waxa looga faanay lacag iyo wad waxaan codsanaa tan maanta waaba arkaynaa waa arin looga talagalay gabarta xaqeeda in lagu dhumiyo wixii gabar xaqooda dhumay aaw inta u dambeysay maxaan codsanaa dawladda haday macnaha ay ka shaqeynaysa community-deeda xaqooda inay soo saarto day rabta tan maanta aan leenahay oo na haysata waxa nooga qabata bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa xasan xuseen shuure waxaan ka xunahay waxyaalahan cadaalad la'aanta oo wajeer ka dhacaya hase ahaatee magaalada waa magaalo oo muslim uu degan yahay oo wadan muslim uu yahay marka waxyaalahan ay tacamal hadii oo xal laga gaari way anaga nafta wax baan soo gaaray gabar la soo faraxumeeyay oo caalamka idin laga ogaaday ala leeyahay saakay ninka faraxumeeyay waa la siiday keeska gaarisa lagu dhageysanaa keeska maxkamadan wajeer lama keenin gaarisa lagu dhageysanaa ka waran taas waxayna tusaysaa meeshan in wax lagu kala qaatay gabarta xaqeeda sida ayada lagu dhuminaya waxyaalahaas camalana ka dhacay magaalada marka waxaan leenahay dawladda waxyaalahan camal ka fiirsata ummadda masaakiinta lagu sameeynaya intaasaan soo jeedin aniga raayigay inuu dhahay taariikh law ayaa ninka dambiilaha la keenayo wajeer police station saakila hadan taagneeni meel maan u bixin ilaa maanta waa sugayni mar 5 saac ayaa la keenay meeshan stationka oo saalka la galiyay waliba sida adigoo sidii qab darooda wax la yaani qalab la dejinay gaariga daba inta loo gargaaray DCI-ga meesha saalka la galiyay gudahaas ku jira indeegana ku soo arkay waxaan weydiinayaa markii la weydiilaa haddan DCI waxay dhaheen ODPP DCI waxay aan keeska soo gudbin ODPP aan soo gudbin prosecution aan soo gudbin prosecution ka dhamaal shaqaalaha ma waa ninka weyn prosecution wajeer oo la dhaamistan deege ayaa inta orday ayaa faylka hadda bahay horii gadaalas u wareeganahaya runta dadka uma sheegahaya aniga sidii faadmaan u fahmahaya waa nin gacan la taabsiiyay oo waxa la siiyay ninkaasayto sababtoo keesas badan kootina iimaanay kaas wali gaars gudbi la dhahay mal arkay maxaa keeskan gabadhan yariste keeska kootini gaars loo gudbinaay maxaa chiefkan miya kana sabroon gabadha oo keeskeeda loo gudbinaay hadii la dhahay keeska gaars loo gudbinaay ODPP xafiis inta muxuu ka haya runtii raano la sheegay maxaa nuurdiin xaaji ha noo sheego sidii kees wajeer la keen lahay maanta aad ninka prosecutor-giisa asay shaqaalaha intuu joogo dhahay keeska gaars aan gudbinaay ka jira booskay afkiisa ugu dhahay booskayga ayaa amar keeskana soo gudbi talaan ku jirnaa ilaa amkaana talwili lama gaar taas maxay ku tusaysaa inay cadaalad meesha ay jirto waxaan su'aal kale hadii keeska gaarisa loo gudbinaay maxaa gaarisa wajeer loo koodka maxkamad maxaa looga dhisay maxkamad wajeer laga dhisay maxaa maxkamad wajeer laga dhisay maxkamad wajeer laga dhisay waxa way nimbo tidii rabday prosecution oo isticmaalayaan maxay xalay inaad yaani shaqo qabadka bulshada loo soo dhaweey sidii dhibnaan arkay taas maxaa u maleeynaa dulmi gabadh lagu sababto mid koobaad gabadha iyo hooyada waa dad faqiirine ma qawadaan tabarti ma hayaan ilaa Nairobi gaarsay ku aadaan mid labaad noloshada ayaa qatar gina dhaxdan baa laga afduubi karaa soo waxaan reenahay hadii gaanaga keeskan lagu mista ndege shaqaha laga qabto runtii in sheega This aspect was